wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir, mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleedyada dalka iyo madaxda ciyaaraha dalka ayaa ka qayb galay kulan loogu duceynayay Allah u naxariisto gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso oo 1 Agoosto sanadkii hore 2019 ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar kadib dhaawac ka soo gaaray qaraxii ay hargeysada ka geysteen xarunta gobolka Banaadir 24 Julaay sanadkii hore 2019 kulankani ducada waxaa sidoo kale barbar socday kulan ciyaareed ay isaga hor imaadeen kooxda kubadda cagta ee dowladda hoose xamar iyo kooxda kubadda cagta ee madbacadda. wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka mid ahayd mas'uuliyiintii ka hadlay kulankani ducada ee loogu duceynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahana duqii Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso. xuska iyo xusuusta shahiidintii ku geeriyooday aqalka dowladda hoose ee gobolka Banaadir halkan aan u taaganahay in aan maanta koobkii lagu maamuusay gaar ahaan gudoomiye hore gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho magacayga magaca wasaaradda iyo dhammaan magaca xukuumadda waxa ku hadli doona wasiirka warfaafinta gudoomiyaheena wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareey quraankii ducadii loo akhriyay Allah u aqbalo. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in kooxaha argagixisada ujeedkoodu uu yahay dabarjabinta horumarka iyo nolosha Soomaaliya hase ahaatee looga baahan yahay ummadda Soomaaliyeed in ay si wadajir ah ugu midoobaan la dagaalanka argagixisada. waa maalin ka duwan maalmaha kale waa maalin aan xasuusanayno gudoomiyihii gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan iyo tiimkiisii la geeriyooday. maalintan waa maalin loola jeedo in lagu xasuusto dhacdadaas foosho xun oo na soo martay oo hadda laga joogo muddo sanada. waxa kale oo halkan la dhigayaa koobkaas oo asagana ujeedadiisu ay tahay maamuusida lagu maamuusayo marxuumkaas loogu magac daray garoonkan Injineeriso Stadium. dhammaanteen waxaan leenahay marxuumka Allah u naxariisto iyo marxuumiintii kale oo dhammaantood aan dhihi karno waa dad shuhada ah oo ku baxay gacan ku gardaran. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareey waxa uu tilmaamay in Allah u naxariisto marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriso uu ahaa halyay Soomaaliyeed oo dalkan wax badan u soo qabtay. Cabdiraxmaan Injineeriso wuxuu ahaa qof tiknookaraad ah oo qaab aqoon-yahan ugu soo shaqeeyay dalka. wuxuu ahaa wasiir oo dhowr jeer xil wasiir ugu soo shaqeeyay dalka. markii ugu dambeysayna isagoo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo runtii aragtidan dawladda hadda jirta ee dalka dib loogu dhisayo dawladnimadii Soomaaliya lagu soo celinayo hormuud madaxdii ka ahayd argagixisadu beegsatay oo dishay. marka aad baan ugu amaanaynaa oo ku hadlaya afka xukuumadda wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasiirad Khadiija iyo tiimkeeda iyo gudoomiyaha Cumar iyo tiimkiisa gudoomiye ku-xigeenada dhammaan inay xuskaan sanad kadib ay sameeyaan taasoo aragti u ah in la xusi doono sanad kasta. Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.